الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي ومهله سبحانه وتعالى، الحمد لله ثم الحمد لله. إلهي وحنكم مهدينينا نمعوين فربضان وينسيين وأي كم تاي tartankii aqooneedkii inoo soo socday muddada badan oo awal finalkii laba fasal ay isugu tageen, galabtana labada fasal oo shanaadka iyo afraadka ay kaalinta saddexaad u tartamayeen. in ilaahay inoo soo gabagabeeyey si nabada oo qurux badan oo runtii aad iyo aad u qiimo badan. ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala. marka labaad, labada fasal oo tartamay, fasalka afraadka iyo fasalka shanaadka, waxa weeye galabta waynu u jeednay, indhaheennaynu ku daawanaynay. waa la isa soo adkeeyey, wax badan baa la soo akhriyey. qorool baa waxay ku dadaashay inaan kaalinta saddexaad, maadaama ay finalkii tagi waayeen, kaalinta saddexaad inaysan dhaafin. laakiin nasiib baa jiray, waa la soo dadaalay labada fasalba. runtii diyaargarow fiican iyo aqoon baa ka muuqatay. waxaad ku garanaysaa su-aalihii lagu talagalay oo shanta ahaa oo qolo walba ay lahayd waa la isla dhaafay. su-aalihii dheeraadka ahaana ilaa laba su-aalood bay gaareen. wax yar oo runtii aad iyo aad u yar ayaa lagu kala qaaday. fasalka shanaadka oo kaalinta saddexaad ee tartan aqooneedka soo galay, waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsantihiin. mabruuq, alfa mabruuq. waa idiin hambalyaynaynaa insha allahu tacaala. afraadka oo runtii galabta nasiibku ka hiiliyey, waxaan leenahay waa soo dadaasheen. kuwa dambe ayaad insha allahu tacaala geli doontaan oo aanu guul idiin rajaynaynaa. haddana waad guulaysateen, aqoon baa soo bandhigteen, waayo aragnaba soo bandhigteen. nasiibka idinka hiiliyey insha allahu tacaala ha niyad jabinina, soo dadaala. kuwa dambe oo inoo soo socda ayaad insha allahu tacaala aan idiin rajaynaynaa inaad kaalimaha horogeli doontaan insha allahu tacaala. taasina waa intaa. waxaan intaa ku darayaa arday aad iyo aad baa umahadsantihiin. allah idin barakeeyo oo idin ducaynaynaa. waxaan rabaa dhowr arrimood insha allahu tacaala intaas inaan ku daro. arrinta koowaadi waxa weeye, waxayna ku soo wajahan oo aad inuu ku dhow bishii ramadaan. sida aynu ognahayna bisha ramadaan jadwalku waa isbedeli jiray. innaga gelin dambe ayaa waxbarashadeena iskuulku ahayd, gelinka hore qur-aankay ahayd. bisha maadaama bishii ramadaan ay tahay, sidii aynu naqaanay jadwalku waa isbedelayaa. galab way tahay, laakiin xilligii la dhigan jiray ayaa laga soo hormarayaa. waana filayaa maamulka iskuulku inuu warqadaha idiin qaybiyey xilliga la imaanayo, inta xiisadood la qaadanayo iyo xilliga la baxayo. sabtida marka insha allahu tacaala, haddii ay noqoto ramadaan noqoto oo la soomo, waxaad ku soo talagalaysaan 5 saac iyo 45 daqiiqo inay xiisaduhu inoo bilowdaan insha allahu tacaala. haddii aysan soo noqon oo soonka axadda uu noqdo, waxaad ku talagalaysaan xilligiinni inaad timaadaan oo 7 saac iyo bar inoo bilaabato. laakiin sida caadiga ah, ramadaanta insha allahu tacaala oo usbuuca soo socda ah, xiisaduhu waxay inoo bilaabanayaan 5 saac iyo 45 daqiiqo. arday kasta waa inuu xaadir yahay. 5 xiisaan qaadan doonaa inta ramadaanta insha allahu tacaala. waxaa la bixi doonaa 9 saac iyo 15 daqiiqo. lama soo noqon doono, markaasaa la kala tegaya. halkaas waa intaa. maalinta arbacada ah oo tartanku inoo ku jiray, xiisadii baa inoo geli doona insha allahu tacaala. intaas ha lala socdo. waa fariintaas tan koowaad oo aan dirayo. arrinta labaad waxa weeye, dhanka
tartanka laba qaybood oo ah sidaynu ogeyn qayb baa inoo hartay tartan aqooneedkii baa inoo dhamaaday maxaa inoo haray qaybtii kubadda iyo gabdhaha qaybtoodii labaduba waa diyaar insha Allah taala wiilasha kaliya kubadda looma qaban doono gabdhuhuna tartankaasi waa ku jiraan tartan ku munaasaba oo iyaga u qalma ayaa insha Allah taala u qaban doonaa isbuuca dhammaana la soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hadda markaynu baxno waxaa la qaybin doonaa wiilasha iyo ciddii tartan ka qaybgeli lahayd kubadda ka qaybgeli lahayd ayaa insha Allah taala la qaybin doonaa ama la isku dari doonaa hawshaasaan qabanaynaa iyaduna waa intaas oo wada soconaysaan haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan intaa ku darayaa jadwalka quraanka بالرسوة ayaa la idin sheegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo ramadaanta sidii noo noqonayo galika hore iyo xilliga la imaanayo idinkana waxa la idinka rabaa inaad soo dheereysaan بالرسوة dugsiga insha Allah taala taasina waa inta khayraad iyo aad u fara badan baan idin rajaynayaa guul baan idin rajaynayaa insha Allah taala macallimiintu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyo maamulkuba tartanka iyo sida ayna ku maartay daadiyeen siday maaragtay inuu ku soo wadeen oo qiimaha badnayd waa uga mahad celinaynaa jazakumullahu khayran baa leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh